dhaqdhaqaaqyo horseedi kara isbeddel degdeg oo ku yimaada siyaasadda Soomaalida ayaa socda waxaa jira dadaal xoogan oo ku isiran is-abaabul bulsheed oo maara loogu dayayo dayaca darayada dawladliidu keentay ee gashay gugii soddonaad Soomaal dhankaad eegtoba la isma dhaamin muddadaasi dheer ee bulshadu beerka dhulka ku wada hayay ilayska dawladnimo ka daarmay koonfur oo haatan tallaabadii la qaadaaba rajo curiye ay tahay ayaa wuxuu horseeday in meelo badan haldoorka Soomaaliyeed ay u holladaan ka qayb ka noqoshada mar kale iyo geedi ummadeed Somaliland waqooyi dadku haatan waxay ku wada baraarugeen aragtida lagu dhaqaa inaanay ehel u ahayn aayaha bulshada isla aragtida lagu dhaqo oo ah tangoonigoosadka ayaa iyaduna xilligan ku kooban hiyikac dawladnimo doona ayaa ka daaran waqooyi hugun baabaxaya dadweynuhu hoggaan u yahay taasoo uu daaha ka qaaday dhaqdhaqaaqa midnimo doonka ee la magac baxay mar kale midnimo waa tanta guuxa bulshada kor u qaaday qurxan hoos jirana dibadda keentay ku dhawaaqidii dhaqdhaqaaqani wuxuu noqday arrin si weyn gudaha Somaliland raad ugu yeelatay taasoo sababtu tahay hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa baashe oo ka mid ahaa jabhaddii SNM oo eedaha dumintii dalkii dhisnaa barkooda leh kala goynta Soomaaliyana iyagu sumad u ah sidoo kalena Maxamed Baashe oo isagu kaalin muuqata ka soo qaatay dhismaha xukuumadihii u kala dambeeyay Somaliland waa shakhsi aan dhawaaqan hore looga filay sidoo kalena aan wax raadax ku lahayn ka baayac mushtaraynta siyaasadda iyo geediga hadba meel u guura arrimahaasi ayaa ah kuwa sababay inay bulshada dhexdooda dood ka dhaliyaan qaar kalena ku dhacay u keenaan kuwa kalena ay ku bahirtaan dhawaaqa kadib waxa iyaduna shaki weyn ku abuurtay bulshada qaybta aaminsan in la kala go'o kolkii la waayay hogaamiyahan dhaqdhaqaaqa iyo kooxdiisa cid la dooda oo daliil u keenta waxa ay la go'ayaan waxa kooxda baasha loo cidleeyay doodo warbaahintu qabatay tan ayaa xiisale waxa doodaha ka dhuuntay Bari Faysal Bulxan oo ku caana aragtida gooni-goosadka sidoo kale waxa doodaha isaguna ka muuqurtay qoraaboobe Yuusuf Ducaale oo Maxamed Baashe ay muddo dheer kaymihii SNM ku soo wada jireen aqoon-yahan Baashe walow doodahaasi lagaga muuqurtay haddana wuxuu bedka keenay sababta aan Soomaal si naba aanay ugu kala maqnaan karin maxaa keenay waxay baahidu ma kala midnimo horta waxaad ogaataa si rasmi ah inaanay mar raba u kala bixin Soomaaliya iyo Somaliland ama koonfur iyo waqooyi kubka iyo bowdada laga wada jabay 30 sanadood kadib halka qolo waliba taalo iyo arrimaha halista ah ee waaweyn ee inaga baxsan ee siyaasadda gobolka Geeska Afrika imika ka dhacaysa cusub ee waayaheeda iyo siyaasadaheedaba leh isbedelada maanta jira waxay abuurayaan fursado waaweyn fursadaha waaweyn ee abuurayaan marka aad eegto gudaheena ama Somaliland ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaatee waxa muuqata hadii lagu jiro sidanaynu nahay 30 sanadood u dambeeyay aynu ku soo jiray in 10 sanadood ee soo socda haddaan hadda tallaabo wax ku oola la qaadin in aynu yeelan doono sawir ka maanta ka foolxun oo dib la isugu canaanto oo mas'uuliyiintu dib isugu canaantaan oo dadka waxgaradkii dib isugu canaantaan oo abwaanadu dib isugu canaantaan oo xildhibaanadu dib isugu canaantaan oo culimada iyo ganacsiyaashu ay dib isugu canaantaan taariikh madow oo foolxun ayaa 10 sano soo socota iman karta haddii aan maanta tabaabulsho iyo qorshe lahayn isu imaatinku shaki kuma jiro labada dhinacba geed walba in gubtaa hoos taala Somaliland ma dhibaato la'ayn mar walba dhibaato jirtay wala wax badan u qabsoomeen oo dadka shacabkii ay la yimaadeen inay hogaamiyayaashu inta badan shaqo ku lahayn maanta waxa xaqiiqo ah oo waaqiciya in wixii 30 sano la yadyabayay 10 sano u dambeeyay ay noqdeen hal bacaad lagu dhisay in doorashooyinkii lagu faani jiray ay qabsoomi waayeen in axsaab siyaasadeed dhaqan geli waayeen in doorashooyin qabsoomi waayeen baarlamaanka Somaliland wuxuu kuraasta ku fadhiyaa 15 sanadood ku fadhiyaa iyo DD guurtida iyada hadalkeeda in axsaabta siyaasadda waynu ognahay saddex xisbiye wadanka ku jira iyo tayadooda haddii loo noqdo dib u dhacyada dhaqaale iyo bulsheed hadday noqoto biyaha hadday noqoto caafimaadka
hadday noqoto waxbarashada hadday xitaa noqoto amniga dadku marka ay Soomaaliland iyo nabadeeda laga hadlayo gobollo cayiman bay soo qadimaan cadaalad darrida ka jirta waddankee soo hana qaadaysa ee imika meel walba jebisay karkaarka Soomaaliland wixii ay soddon kordhi in badan soo dhisay dib bay u cuntaa way iscinantaa maalinba in baa fuqdo oo daadegtaa sharci meesha kama jiro ummaddu ay u siman tahay Soomaaliland waxay mararka qaarkood noqotaa qoysland afka ka dhowri mayno in ilaahay inta laga baqaa ilaahay bay ku yaalaan boobe yuusuf ducaale oo ka mid ah xag jirka xilligan laga tirada badan yahay dooda iyo qarnaqsiga baasha wuxuu kaga jawaabay TV-ga dooda qabtay waa cadowga hal la xidho hadalkeenu wuxuu daaran yahay TV-ga Universal oo aad moodo maalmahan inuu ceel batrool ka helay Hargeysa iyo Soomaaliland dadkana intuu guryahooda ku garaaco garashadooda ku caayaya oo ku aflagaadeynaya laba tusaalaan disaynaya bishii hore 22keedii Jimcaha ahayd Jimcaha hortii dhowrkii cishe ka horreeyay telefoon baa guriga la igu soo diray dabeedna waxa la igu dood Jimcaha ayaanu doonaynaa inaad nagala qayb gasho nin Cabdixaafid la yiraahdo ayaa ii soo diray oo u shaqeeya telefishinka oo fulinayay siyaasadii telefishinka waxba hadalka uma badin waxaan ku wili waan hargabsanahayo ma karayo sabti axad baa wuxuu igu balida arbacada waxaan ku wili ka soo hormarso salaasada aynu wada hadalno waxaanu xasuusinaynaa xukuumadda Soomaaliland xerdajinta Soomaaliland garsoorka Soomaaliland iyo cid waloo dadkan iyo dalkan xil u haysaba inay ka damqato oo ay ka difaacdo weerarada joogtada ah ee lagu hayo ummadan ee gaar ahaan telefishinka Universal iyo inta la halmaasha ka imanaya qadiyada mar kale iyo midnimo kaliya ma jabsan difaacyada shakhsiyaadka ugu mayalka adka oo difaaci kari waaye waxa ay u go'ayaan ama ay aaminsan yihiin balse xukuumadda biixi lafteeda ayaa u maaradayda qadiyada iyaduna u taagla TV-ga ku hadla afka xukuumadda biixi oo weerarka baasha dhankiisa ka qayb galay waxa wariyaasha ka howlgalaa ay gaarsiiyeen in dadka aaminsan mar kale iyo midnimo ee reer Soomaaliland ay dhahaan Soomaalidu isku af maaha isku isirna maaha oo xataa isku diin maaha difaacyada jaban doodka cararka iyo taniba waxay mar kale u furaysaa in garabka tirada yar aanay jirin tirad adag oo aragtidoodu goonigosadku ay ku taagan tahay Soomaalinimo midnimo Soomaalinimada qowmiyadeedu may kala go'in meel walba ay joogtaba waa garta waxba waxa mideynaya afkii diintii dhaqankii waxaasoo dhan baa ina mideynaya waliyo halkaa ku noqo Soomaalidu isku wada dhaqan maaha isku wada af maaha niyo isku wada diinna maaha dad badan baa inala soo hadlay caawa وكلا فكرة الدوانية شيكاد waxay isugu soo biyashabatay fikir in uu la yimi Maxamed Baashi qalada fikir bay ka dhigeen fikir ma fikirkana meeshii markaa arrinkani waxa weeyaan waa arrin qarannimada madax banaanida Soomaaliland lidiko ah fikirkaasna inuu laga soo horjeesto media ahaan anagu la dhabaan deganay la dhabaanu kaga dhawaaqay anaga waajibkayga tahay inaanu niraano fikir ma la imane qaran dubis baa Maxamed la tiriyay اللي قرن كبير وضلنا حلك انك الى صارني waxa weeyaan difaaca wadankeena difaaca wadankaaga mar qori baad ku difaacaysaa marna aqli baad ku difaacaysaa marna af baad ku difaacaysaa inagu halkan waxaynu u fadhinaa inaynu af ku difaacnade mucaaradka Soomaaliland oo arrintan ka hadlay ayaa iyaguna tilmaamay inaan la dayalsan karin sidoo kalena aanay difaac qadiyadaasi u noqon karinin in la isdhaleeceeyo oo kaliya kulmiye dadkii buugooda qorayay maxaan ku raahdaa in dadkii buugga kulmiye qoray maxaan ku raahdaa madaxweynahan wax ka dhisay ay maanta yiraahdaan amaba Soomaaliya madaxweyne ka doonaynaa amaba waxaanu doonaynaa midnimo dib maxaan ku raahdaa ugu ololaynaa arrin inta ka gun weyn ba sharaxaysa marka inaynu ama kulmiye taa ku eedayno ama madaxweynaha ku eedayno ama ashqaastan laftooda ya aynu baraha bulshada ka caynaa maxana ma sameynayso Maxamed Baashi tusaale ahaan waa nin aqoon-yahan waa nin kartile waa nin wadankan soo dagaalamay oo SNMT ahaa waa nin maxaan ku raahdaa dawladihii Soomaaliland oo dhan wax ka dhisay waa nin dadka qurbo joogta ugu firfircoonay Soomaaliland dhaqdhaqaaqa marka baraha bulshadeenu ka caynaa
mise waxaynu isweydiinaa why muxuu maxamed sidan u sameeyey ugu dambayn sabab ayaa jirta arrimaha oogani ay daaran yihiin dadku waa badaaleen nus ka mida cimrigoodii oo 30 sanno ahi inuu bannaan ku lumay waa tan lagu baraarugay inta loo meeldaeyay dareenkani sidaa waa baaqiga ka dhiman cimriga dhallinyarada oo isaguna ah gacan uu ku jirta daayarta aragtida mar kale midnimo taageertayna waxa ay ka ordayaan in 60 sannadood ee noloshooduba cidla ku wada lumaan taa weeye tan dareenkan iyadu daadahaynaysa